qof loo ogol yahay inuu argagixiso magac uu doono ha lahaadee dhiirigeliyo oo uu faafiyana ma jirto. waxaan rabaa inaan idin sheego go'aanka halkan aan uga hadlayo qof kasta title kasta ha hayo magac kasta ha lahaado meel kasta ha joogo si siman ayuu dadka u saameynaya. waa dareemi karnaa walaaca dadweynaha ee arrintaas ku saabsan. qof loo ogol yahay inuu argagixiso magac uu doono ha lahaadee dhiirigeliyo oo uu faafiyana ma jirto. tallaabooyin la qaaday oo arrintaas ku saabsan ayaa jira. waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala dadkuna inay arki doonaan lagana bogsan doono arrintaas oo aan dib u soo noqon doonin. waa dareemi karnaa su'aalaha dadka Soomaaliyeed iska weydiinayaan in aysan gar ahayna waa dareensanahay. waxa ay mudan tahay insha Allah ta'ala qaybna way martay inta kalena waa la dhameystiri doonaa. xaalad gaar ah hadda aniga aan tilmaamayo ma jirto, laakiin waxaan rabaa qofka wariye markaa tahay waa inaad qawaaniinta adduunka taqaanaa. waa inaad qawaaniinta waddankeena taqaanaa. waddankan lagama ogola fikirka al-shabaab ee laba xaaladood ku saabsan. in aad noqoto aalad al-shabaab dadka ku qortaan oo u dhiirigeliyeen al-shabaab dadka ku biiraan. in aad dadka u cabsi geliso oo aad u argagax geliso oo fariimahooda cabsi gelinta aad dadka u soo qaado, labadaas lama ogola. qof kasta iyo meel kasta oo ku sifowda sharcigan la tiigsanayna sida aan hadda kuwa aan sheegnay oo afartameeyada oo la xiray. waxaan hubnaa qaar badan oo kamida inaynan ogeyn waxa ay sameynayaan. in kamidana al-shabaab leh oo magacyo kala duwan la bax ama Abu Cali la bax ama tuulo magaceed la bax ama midabka ama dukaan ganacsi la bax midabka doonta yeelo. fariin al-shabaab haddaad faafiso taargetaad noo tahay sharcigaana noo ogol. waana waxa runtii markaan saas leeyahay in yaroo kooban aan la hadlaynaa culays aan dareemayno oo ku saabsan in dadku ay sanbita u hayaan ma jiro. runtii dagaalka maanta al-shabaab lagula jiro waxa macnaha u yeelaya waa in dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku jiraan oo aanay dawlad kaliya ku jirin.